ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير فكان الإنسان عجولا. waxaa masjidka imaamu shaafici magaalada Johannesburg ee dalkani koonfur Afrika lagu qabtay tartanka Qur'aanka Kariimka ah kaasoo ay ka soo qayb galeen waalidiinta ardayda ka qayb galaysay tartankani, macallimiin, culimaaddin iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkani koonfur Afrika. ugu horeyn ayaa waxaa sharaxaad guud ka bixiyay qaabka tartankani uu ku socon doono Sheekh Maxamuud Cabdullaahi Salaad oo kamid ah golaha dacwada Al-Bayaan, isagoona markaasi sheegay in ardayda ay ku tartami doonaan 114 Qur'aanka Kariimka ah. category ama qaybta maanta aynu gudagalayo ee tartanka oo ah laba qaybood. qaybta A waa 7 juz إن شاء الله تعالى waxaa ka geli doona afar arday. qaybta labaad AB waxaa lagu tartami doonaa maanta 15 juz waxaana ka qaybgalaya arday gaaraysa 7 arday. intaasi kadib ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay codbaahiyaha amiirka guud ee golaha dacwada culimaaddinka Soomaaliyeed ee dalkani koonfur Afrika ee Al-Bayaan, Sheekh Xasan Guure, isagoona sheegay in alla mahadiis ay tahay in ubadkii Soomaaliyeed ee ku dhashay dalkani koonfur Afrika ay maanta ku tartamaan 114 Qur'aanka Kariimka ah. إذا كبرنا سيدي توصل هو أقل هو تنورشل إيمان مرضي الله سبحانه وتعالى وتفرق وشر وعزة يروي الكريم أضرار توقف أسماء ربي أحدا كل شر وكل ولا مرة أحوال من تستفاد بيته تريد هذا إخوان سيروا وعطاك بعد هذا ليس. waxaa sidoo kale isna goobta ka hadlay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada tartanka Qur'aanka Kariimka ah, Sheekh Cali Tawxiid, isagoona markaasi taariikh kooban ka bixiyay sidii ay ugu suura gashay in tartankani Qur'aanka Kariimka ay ka soo qayb galaan dugsiyada lagu barto Qur'aanka Kariimka ah ee Soomaalidu ku leedahay 9 gobol ee dalkani koonfur Afrika uu ka kooban yahay. alxamdulillah tartanka fikradiisu waxay bilaabatay tartankii bishii Ramadaan labada kun iyo kowdii madrasada labada kun iyo tobankii madrasada Al-Bayaan aad garanaysaa masjidka lagu qabtay ayay fikradaasi ay ka bilaabatay. waxaan isku daynay majliska in uu ballaariyo tartankaas oo la gaarsiiyo dhammaan gobolada waddanka oo dhan, laakiin markaas iyada waa suurtoobi weyday. waxaan loo dabdigay fikradan in la suurtogeliyo sanadkan 2012. waxaa lagu go'aamiyey tartankan shirkii shuurada majliska Al-Bayaan oo dhacay 16 bishii 9 2011 in madaarista la soo ururiyo loo qabto tartan guud. si kastaba ha ahaatee tartankani Qur'aanka Kariimka ee lagu qabtay masjidka Imaamu Shaafici magaalada Johannesburg ee dalkani koonfur Afrika ayaa wax badan ka duwanaa kii sanadkii hore lagu qabtay, waxaana xusid mudan in tartankani ay ka soo qayb galeen dhammaan dugsiyada lagu barto Qur'aanka Kariimka ah iyo axaadiista nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ee jaaliyadda Soomaalida dalkani koonfur Afrika ku dhaqan ku leedahay 9 gobol ee uu ka kooban yahay dalkani koonfur Afrika. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga Universal TV, masjidka Imaamu Shaafici magaalada Johannesburg.